kan cadowga hala ka saaran in laga xoreeyo oo aanu ka xoreyno haddaanu helo maamulka iyagoona horkacaya diyaar baanu nahay isma dugsanayno waxa weeye anay dileen hantidaydina waa qaateen waxaana iguma lahayn maalintaasaan qoriga qaatay qoriga qararta ii saaran maanta maalintaasaan qaatay waxay igu lahaayeen ma jidho inaan u gumo ma raba inaan iska dhiciyo baan rabaa inaan iska dhiciyo baan u baahanahay waxaan u baahanahay marka maamulkayga iyo xukuumaddayda iyo madaxweynahaygu inay ka isgarab taagaan la socono duruufta iyo dhibaatada idin haysa sida aad noo soo dhowayseen ama idinka muuqata yani rabitaankiinna dawladnimo aad iyo aad baan idinka mahadcelin waxa la yidhi wasiir waxaanu xoogaa security-ga darteed baanu muxuu ahaayey baanu jecel lahay inaadan tegin halkaagaa ka noqoto laakiin nasiib wanaag maanta shakigii ugu jiray ilaa magaalada halkii ugu dambaysay baad geyseen oo madaxweynaha geyseen oo kulligayana geyseen maca golihii xukuumadda iyo wasiirradii iyo madaxweynihii iyo la horkacaya marka wax badan oo jiray oo la aaminsanaa baa maanta baxaya aad iyo aad baad u mahadsan tihiin aad baan idinku hambalyaynaynaa baahidiinna iyo dhibaatada idin haysa iyo duruufta jirta idinkaa afkiinna ku hadlaya iyadoo aad jandaysan odayaasha iyo dhallinyarada iyo dadka waxgaradka ah madaxweynuhu wuxuu yidhi si gaara ha laygu keeno waad nagala hadlaysaa laakiin guud ahaan jawiga guud muxuu ahaayey hambalyadii guud ee aannu idiin wadnay aad iyo aad madaxweynahaana idiin soo gudbinaya aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaannuna jecellahay dawladdiinnu waa idinka warraysaa dawlad yar oo hadda aad u tabar daran baanu nahay oo dhowaan dhalatay soomaaliduna waxay tiraahdaa wiilkaaga jiilaalka dhashaa waa waxaa qabta kula qabe annagu waxaa weeye gebigayago 3 bilood 4 bilood baan jir annagoo 3 bilood 4 bilood jir qolyo naga horreeyaa laga yaabaa oo 5 sano 6 sano garanaysaa maamulladii naga horreeyay waxa laga yaabaa inaanay inta badan idiin iman jirin laakiin annagoo 3 bilood jir haddaannu annagoo lugaynayna madaxweynaha magaalada halkii ugu dambaysa aan lugaynay waad arkaysaan yacni in dadaal nagu jiro wixii tabar iyadu waa meesheeda laakiin waa dadaalaynaa waxaan ku soo dhowaynayaa wasiirka amniga oo aad iyo aad nin odaya oo u halgamaya dalkiisa iyo dadkiisa idinkuna aad u ammaanteen waa soo dhowaynaynaa waana idinla ammaanaynaa aad baa u mahadsantii aad baan ugu faraxsanahay in wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland ahna kusimaha madaxweynaha dawladda Puntland inaannu annagoo ka midoo la soconna inaannu maantay dhex taagannahay magaaladii istaraatiijiga ahayd ee af urur waa magaalo istaraatiijiya dhinaca dhaqaalaha dhinaca amniga dhinaca bulshada dhinac walba waa magaalo istaraatiijiya aad baannu ugu faraxsannahay maantay waa maalin taariikhiya 11 bishii 6 maalin talaada ah 2019 in maanta xukuumaddii oo uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenku inay maanta idinla joogaan oo wasiirradii ay marayaan oo saraakiishii dawladda ay marayaan oo mas-uuliyiin fara badan ay marayaan xaaladda aad ku jirtaan idinla wadaagaan idinkana waa ka mahadcelinaynaa sida sharafta leh oo gobonnimada leh oo aad noo soo dhowayseen oo magaalada bannaankeeda nooga hor timaadeen oo ciidamadii naga soo horreeyey u soo dhowayseen oo aad madaxweynaha iyo wafdigiisa aad u marxabayseen rag iyo hablaba aad baannu idinka mahadcelinaynaa wasiirka xanaanada xoolaha sidii uu ka hadlay shirar baa jiri doona hadduu ilaahay intuu wafdiga idinla joogo uu gaargaar u arki doono madaxweynuhu baahiyihiinna iyo duruufihiinnana si gaara baa uga warrami doontaan hadduu ilaahay idmo keliya waxaannu annagu adkaynaynaa anoo marna ku hadlaya magacii wasaaradda amniga marna saaxiibbadayda kale ku hadlaya magacooda waxaannu ballan qaadaynaa wax allaale iyo wixii karaan ah oo awood ah oo baahiyaha af urur ka jira inaannu dhammaystirno insha allah waa ballan qaadayna hadal badan igama furra waxaan rabaa madaxweynaha inaan ku soo dhoweeyo waxaan u mahadcelinayaa reer af urur sida diiran oo kalgacalka leh oo xiisaha leh ay annaga iyo ciidamadiiba noo soo dhoweeyeen
aad iyo aad baad ugu mahadsantiin waannu filaynay idinka reer afurur waad idinka aragnaa dawladda xiisaha aad u qabtaan aad baannu idinka aragnaa waana tusteen waxaan kaloo idiin sheegayaa reer afurur dib ha u dhaceen oo waxyaabaha ay ka cabanayaan noo sheegeen haka dib ha uga dhaceene inaad maanta magaalooyinka Puntland badidooda ugu nasiib wanaagsantiin ama bari ha ahaato ama Highland ha ahaato ama Sanaag ha ahaatee maanta dawladdii madaxweynihii meeshii tiriibkiisa ugu horreeyey uu soo baxo ogaada afurur buu yimi oo ugu horreysay marka aad iyo aad baad u nasiib wanaagsantiin waxaadna garan kartaan ahmiyadda ay Puntland u leedahay afurur ahmiyad weyn bay u leedahay waa taan noogu soo horreysiisay annagaan meel kale u bixin tiriibkii ugu horreeyaan soo baxo halkana koowiya haddii alla yidhi waxaanuna ku dadaalaynaa inaanay markii u dambaysay aanay noqon aanu ku soo noqnoqonno oo dawladdu ku soo noqnoqoto oo laga warqabo waxaan kale oo leeyahay waa kormeerkaas siyaaradaasay maanta inoo ahayd iswaraysigeennana waa yeelanaynaa odayaasha iyo gabdhaha iyo ciddii maxay tahay haysaba waannu ka qaadaynaa baahida waan ogahay horaan guddoomiyaha tuulada iyo odayaasha kalaanu saarnay iyo ciidamada iyo waa warkooda waannu helnay waxbaa naloo sheegay waxaannu ballan qaadaynaa sidaa wasiirku uu yidhi wax allaale waxaannu qaban karro inaanan waxba kala hadhin baannu ballan qaadaynaa midna waa idiin sheegaya waad ogtihiin annaga waxa aad codsteen baa nalaga rabaa oo waajibaad baana saaran idinna waxbaa laydinka rabaa waxaan rabaa maanta inaynu ballantaa kala gallo waxa aad naga rabtaanna wixii karaana inaannu maxay haytoy iyadoo hagarla'aana oo weliba degdega aannu dib ula noqonnoo keenno wixii laydinka rabana inaad talo iyo guurtinimo iyo maxay haytoy wadajir aad ku fulisaan waxa idinku beegan ee waajibka aad iyo aad baad u mahadsantihiin intaasaan ku soo koobaya madax baa taagantihiin ilaahay ha idin guuleeyo guul iyo farxad bay maanta inoo muuqata sidaas baan rajaynayaa inay inoo ahaato tuuladu waa tuulo maxay haytoy aad iyo aad potential u ah potential maxaa la yidhaahaa waa tuulo fursado badan leh in laga faa'iidaysto waxaa iman lahaa oo madaxweynaha anigu kusimihii baan ahay madaxweynihii waa idiin mana laakiin safar shaquu ku maqan yahay hambalyana waa idinka sidnaa iyo salaan waxa aannu idinkula hadlaynana waa wax aannu isla ognahay oo ka yimi waxaan jecel lahay meesha tani inay meel rasmiya inoo noqoto ciidamadu sidaa u joogaan odayaashu saa uga taliyaan dhallinyaradu saa u shaqayso wixii xansho shaqana dib baynu ka dhigan doonnaa haddii alla yidhi wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu